كلها ديجانك مدح دقميدية علماء يدمان متشرف وعليكم السلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينه anagoo ka duulayna manifestadii xisbiga iyo himilada xukuumadda wadajir iyo waxqabad oo ay saldhig u tahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland inay helaan koronto bad qabta la isku halayn karo isla markaana la awoodi karo waxaanu hiigsanaynaa in qiimaha korontada Soomaaliland guud ahaan wadanka uu jabo insha Allah taala mudana madaxweyne xaaladda imika aynu ku jirno dhammaan wadanka oo dhanka la qiimeeyo korontadu waxay gaarsiisan tahay wax ku dhow 50% wadanka oo dhan tamarta aynu isticmaalno guud ahaan wadanka 20% bay ka tahay tamarta la cusboonaysiiyay inaguna waxaynu dhiiri gelinaynaa oo aynu awood gelinaynaa inaynu isticmaalno tamarta la cusboonaysiin karo oo hadda 20% ka wadanka waxaan isticmaalno madaxweyne wadankeenu wuxuu qani ku yahay tamarta la cusboonaysiiyo dhamaan marka la eego Afrika iyo East Africa gaar ahaan East Africa ama wadamada bariga Afrika waxaynu nahay meelaha ugu solarka fiican tamarta laga dhaliyo cadceedda taasoo lagu qiyaasay celcelis ahaan in laga heli karo 6 kilowatt hour halkii mitir square ba laga heli karo halkaas waxa ku tilmaamaysaa markaa inaynu qani ku nahay tamarta la cusboonaysiin karo barbarana waa meelaha koow ka ah wadanka oo dhan markaynu eegno tamarta la cusboonaysiin karo madaxweyne taa waxa soo raacda tamarta la cusboonaysiin karo iyaduna kamid ah dabaysha oo wadankeenu yahay meelaha ugu wanaagsan bariga Afrika Suudaan bayna soo raacda madaxweyne iyaduna waxa lagu qiyaasaa 9 ilaa 12 mitir per second inuu xawaaraheegu yahay waana dabaysha ugu badan oo aynu iyadana isticmaali karno haddii aynu maalgelino oo aynu ka shaqeyno madaxweyne waxa soo raacda madaxweyne tamar kale la cusboonaysiin karo oo wadankeenu uu leeyahay oo meelaha qaar kood laga helay gaar ahaan Berbera iyo gobolka Awdalba oo ah tamarta qaaca dhulka geothermal waxa la yiraahdo wadamada jaarka ah ama Kenya oo kale 40% waxay ku tiirsan yihiin tamarta qaaca dhulka ku tiirsan yihiin wadankeenu madaxweyne meelaha potentialka ay laga heli karo waxa kamid ah Berbera kamid ah biyo kululeeyo meel la yiraahdo halkan hiigsiga aanu leenahay ee ujeedooyinka istiraatiijiyadda wasaaradda wax kamid ah in la heli karo marka la awoodi karo ku filan dadka la isku halayn karo bad qaba mudan madaxweyne siyaasadda aad nagu hogaaminayso oo wasaaraddu hiigsanayso iyadoo shacabkeega shirkadaha oo ka tahay shirkadda Berbera oo waqti badan soo gelisay inay qiimaha jabiso laydkuna uu taagnaado muddo ku filan magaalada Berbera waxaanu ka wada shaqeyn doonaa dhammaan shirkadaha inaanu anagoo hiigsanayna in mustaqbalka wadankeenu inagoo wada socona aynu gaari doono iyadoo bilowna aanu sameeynay in laysamada la kala saaro halkan waxa ka xusi doona marka komishinkii tamarta gudoomiyihii iyo agaasimaha ay joogaan oo iyaga loo waqti badan soo geliyay ka shaqeyntaasi waxa laysamada la kala saarayo madaxweyne waxa kamid ah oo siyaasadeena base u ah ama saldhig u ah in markaasi dabdhalinta gaar laga dhigo oo dhammaan xeerasheena iyo xeer nidaameedyadeena iyo siyaasadeena iyo istiraatiijiyadeena ay aligned ku yihiin in laysanka qaybta dabdhalintu uu gaar noqdo qaybta dab soo gudbinta ama dab qaadista oo transmission kuna uu gaar noqdo mustaqbalka halkaas aanu hiigsanaynaa inagoo wada socona qaybta qaybinta iyaduna ay gaar noqon doonto oo distribution systemka inagoo insha Allah hiigsanayna oo qariyaasheena dhow iyo ka dhaxe iyo ka fog bay noogu jirto in national grid line la isku halayn karo oo iskarabiya shirkadaha la yareyn doono madaxweyne maanta waxaynu joognaa mudane madaxweyne xafladda dhagax dhiga koronto ballaarinta magaalada Berbera
mudana madaxweyne dhagax dhigani wuxuu ku yimid dadaal badan oo habeen iyo maalin galay oo nu ka wada shaqeynay tiimka wasaaradda oo aan aad uga mahadnaqayo iyo mashruuca World Bank shaqaalihiisu iyaguna aad noogala shaqeeyay oo habeen iyo dharban la shaqeynay iyagana waa mahadnaqaynaa mudana madaxweyne ujeedooyinka mashruuca laga doonayo guud ahaan way barbar kow ka tahay waxa weeye ujeedooyinkiisu in la gaaro leer jaban ujeedada guud ee mashruucaasi waa inaynu leerkeena jabina weey shabakada isku xidhka magaalooyinkana la hagaajiyo oo taan ka hadlayo markaas Greenland-ka ahaa mudana madaxweyne magaalada Berbera mashruucani wuxuu u deeqi doonaa oo uu siin doonaa 12 megawatt oo ah tamarta qorraxda ama solar panelska iyo 36 megawatt hour oo tamar kaydiyaal ah oo bayteriya ah oo tii aynu soo marnay ah oo meelaha ugu baahida badan leh ah tusaale ahaan marka 7 megawatt ee halka talamada madaxweyne wax bayteriya u yaalay ma jiraan habeenkii markaasi hadii laga isticmaalayo maalintii 2 megawatt shanta kale marka madaxweyne lama isticmaalo oo meel loogu kaydiyaay ma jirto marka 36 mashruucaasi u deeqi doonaa bayteri 36 megawatt hour oo bayteri ah iyo waxa kale oo siin doonaa 13 kilomitir oo dab qaybiye ah laynka halkan ka qaadaya ee ku xidhaya magaaladii oo 13.5 kilomitir ah mudana madaxweyne waxa lagu qiyaasay mashruucan inuu baahida dabooli doono 90% wax ku dhow inuu dabooli doono sidoo kale waxa lagu qiyaasay mudana madaxweyne inuu mashruucan soo saari doono 22.6 gigawatt hour oo tamar cadceed ah oo u dhiganta 62,000 kilowatt hour maalintii inuu soo saari doono taa macnaheedu waxa weeye shidaalkii waxa uu dhimi doonaa sanadkii 28,250 foosto ayuu dhimi doonaa shidaala mashruucaasi marka hore galo oo u dhiganta 79 foosto maalintii inuu dhigi doono inuu dhimi doono aynu ku qiyaasaynaa marka mashruucaasi uu dhameystirmo hadii la yiraahdo madaxweyne kuma koobna mashruucani kaliya ta magaalada Berbera magaalooyinka waaweyn ee ka faa'iideysan doona ee iyagana tababar siinaya waxa kamid ah magaalada Boorama oo iyadana ugu deeqi doono 10 megawatt oo koronto dhalin ah iyo 20 megawatt oo kaydiyaasha tamarta ah jeedada guud ee mashruucan iyaduna waxa kamid ah in tamarta Hargeysa wax laga qabto laakiin ujeedadu ay tahay madaxweyne in lagu hagaajiyo shabakada iyagoo aynu filayno maadaama aynu hiigsanayno mustaqbalkeena inuu yeelo National Green Line in shirkadaheenu hal mid noqdaan oo inuu naga aqbaleen oo ka wada shaqeyn doonaa hormuud bayna mashruuca ka yimaada madaxweyne waan ugu mahadcelinaynaa iyagana madaxweyne waxa kamid ah mashruucan oo isaguna uu tamar ugu deeqi doonaa 57 iskuul oo dhammaan gobolada Soomaaliland waa Sool Sanaag Togdheer Saaxil Maroodijeex ilaa Awdal 57 iskuul ayaa isagana la saari doonaa tamar mudan madaxweyne oo mashruucan kamid ah oo hadda iyaduna dhawaan fadhiisa meelaha uu aad ka caawin doona madaxweyne waxa kamid ah oo iyaduna baahi aad loo qabo oo mar walba bayteriya u baahda meelaha dhakhtarada ah oo u badan tuulooyinka iyo magaalooyinka yaryar oo iyaduna uu mashruucu ugu deeqi doono 46 xarun caafimaad inuu soo larsiin doono oo dhammaan gobolada madaxweyne siyaasadii aad nagu hogaaminaysay muddada 100 cisho oo ay kamid ahayd magaalada Berbera oo inuu maanta u joogno inuu dhagax dhigno mashruucii koronto ballaadhinta waxaynu oran karnaa halku dhageeygu waxa weeye himiladii madaxweynaha oo hirgish intaasaan ku soo gabagabeynayaa aad baad u mahadsantihiin